Assalaamu calaykum. Waa wax iska caadi ah in qaladaad ay ka dhacaan shirkadaha waaweyn, sababtoo ah mararka qaar shaqaalaha ayaa laga yaabaa in ay wax hilmaamaan ama hawl ay ka gaabiyaan. Saas oo ay tahay inta badan shirkadu way xalisaa oo way xakamaysaa qaladaadkaas. Laakiin qaladkan ay samaysay shirkadan wuxuu ahaa musiibo ka dambeyn. Sanada markay ahayd 1992 dalka Philippines maxaa ka dhacay? Shirkadda Pepsi faraceeda dalka Philippines ayaa waxay go'aansatay in ay sameydo tartan ama bakhtiyo nasiib abaalmarintiisu tahay 1 milyan pesos oo lacagta laga isticmaalo dalka Philippines oo u dhigantay $40,000 waqtigaas. Madaxda shirkadda ayaa kulmay waxayna isku raaceen in cidda abaalmarintan hanan doonta ama nasiibkeedu noqon doonta abaalmarintan ay tahay 2 qof oo kaliya. Xaysiintu waxay ahayd qofkii fura dhalada Pepsiga, daboolka uu dhalada ka furayna uu noqdo daboolka nambarkiisu yahay 349. qofkaas ayaa ah guuleystaha. Ficlanna way guda galeen hawshii waxayna bilaabeen samaynta wax walba. Maalin kadib madaxda shirkadda waxa amaka ku riday in albaabka shirkadda ay soo buux dhaafiyeen kumanaan oo qofood oo dhammaan wada dalbanaya abaalmarintooda. Dabcan waxay isku dayeen in ay si hoos u xaliyaan arrinka, qof walbana ay siiyaan $20. laakiin dadkii uu ka daadegi waayay hadalkooda wayna sii kaceen, tuuryo ayay ku bilaabeen dhismaha shirkadda. Buuqii ayaa halkaas ka sii socday, waxayna kiis ku soo oogeen dadweynihii oo ay dacwad ka gudbiyeen shirkadda. laakiin garsoorka ayaa u sheegay shirkadda in aanay 1 shilin iska bixin ama 1 shilin ayna qofna siin. sababtoo ah baaritaano dheer kadib waxaa loo cadeeyay in xilliga daabacadda qalad ka dhashay kombiyuutarka, taas oo sababtay in si qalad ah loogu daabaco nambarka guuleystaha tiro ka badan 80,000 oo dabool. qiimaha abaalmarinta dadkaas helay dabooladii guusha ayaa ah $16 bilyan. adiga weligaa bakhtiyaa nasiib ma ku guuleystay? haddii jawaabtu haa tahay, bakhtiyaa nasiibka ugu qiimaha badnaa aad ku guuleystay muxuu ahaa? commentiga noogu reeb jawaabtaada. waad mahadsan tahay. waa walaalkiin Maxamed. salaama.